على منهاج سيدنا سنمضي إلى أفق المعالي والثبات بعدل المنهج النبوي سرنا لنشرق بالدنا wuxuu ahaa fadhi qurux badan ilaa waxaa goobjoog ahaa rasuulka sallallahu alayhi wasallam saxaabaduna waxay ku indhakuulanayeen wejiga rasuulka alla nasiib badana raggaas markiiba waxaa goobta la soo mariyay janaaso saxaabaduna waxay janaasadaas uga markhaati kaceen oo ay ku ammaaneen wanaag waxaa dhici karta inay yidhaahdeen maalinkaas meydkan wuxuu ahaa intii uu noolaa walaal balan oofiye ah zawj jecel reerkiis wiil baari ah haliyey mujaahid ah deris wanaagsan oo heshiisiya dadka iskhilaafsan wax ku sadaqaysta masaakiinta qofkii ku khaldamana iska cafiya qalbigiisana uu ku xiran yahay masaajidda iyo thuquurta muslimiinta rasuulka sallallahu alayhi wasallam ayaa markii ay khayr ku ammaaneen janaasada wuxuu ku yidhi saxaabada wajabad oo ah way u waajibtay wax yar kadib haddana waxaa goobta soo maray dad janaaso kala sida markaas bay saxaabadu shar ku tilmaameen waxaa dhici karta inay maalinkaas yidhaahdeen meydkan wuxuu ahaa qof shar badan zawj aad u xun wiil caasi ah deris dhib badan ma ahayn qof u tura dadka weyn iyo kuwa yar intuba waddada masjidkana halka ay martaba ma garanayo markaas ayuu rasuulka sallallahu alayhi wasallam yidhi wajabad ama way u waajibtay saxaabada ayaa yidhi maxaa waajibay rasuulkii allow rasuulka sallallahu alayhi wasallam wuxuu yidhi qofkii aad khayr ku ammaanteen waxaa u waajibay janno qofkii aad ku tilmaamteen sharna waxaa u waajibay naar waxaad tihiin idinka markhaatiyaasha alle ee jooga dhulka dhammaanteena maalin maalmaha ka mida garabyada ayaana lagu qaadi doonaa ilaa naf weliba geerida way dhadhamin doontaaye keliyana waxaan nahay janaasooyin dib loo dhigay waxaaba horay u tilmaamay kacab bin zuhayr oo yidhi kullu bni unthaa wain taalat salaamatuhu yowman calaa aalatin xadbaa'a maxmuulu kaas oo ka dhigan in qof weliba cimriguu doonaba ha gaaree maalin uu dhiman doono ee ma ka fikirnay waxay nagu tilmaami doonaan shuhadada alle maalinka naxshidana lagu sido qof kasta ood adduunkan kula tacaamushay wuxuu kuu noqonayaa markhaati ama adiga ayuu kugu markhaati furayaa ee arrinkaas xusuusnow markaa dadka la tacaamulayso wax weliba waad iloobi kartaa laakiin ka taxadar inaad ilowdo erayga uu rasuulka sallallahu calayhi wasallam yidhi ee ahaa wajabad ama way u waajibtay markaad geeriyooto maxay ku dhihi doonaan hooyada iyo aabbaha ma waxay dhihi doonaan allow u dembi dhaaf wuxuu ahaa wiil wanaagsan ama waxay ku dhihi doonaan rabbiyow adigaa nooga xog ogaalsan caasinimadiisa markaad geeriyooto maxay ku dhihi doontaa xaaskaaga ma waxay dhihi doontaa rabbiyow wuxuu ahaa zawj wanaagsan mise waxay ku dhihi doontaa allahayow xaqayga iiga qaad markaad geeriyooto maxay ku dhihi doonaan carruurtaada ma waxay dhihi doonaan rabbiyow wuxuu ahaa aabbe wanaagsan oo aan u kala eexan carruurtiisa gabdho iyo wiilal ama waxay dhihi doonaan allahayow wuxuu ahaa aabbe dulmi badan u kala eexday carruurtiisa dayacay ammaanadii loo dhiibay oo aan carruurtiisa siin tarbiyo wanaagsan markaad geeriyooto maxay ku dhihi doonaan deriskaaga ma waxay dhihi doonaan rabbiyow wuxuu ahaa deris wanaagsan ee deji meel kuu dhow ama waxay dhihi doonaan alxamdulilaah ugu dambayn waan ka nasnay dhibaatadiisa markaad geeriyooto maxay ku dhihi doonaan ragga aad wada shaqaynaysaan ma waxay dhihi doonaan allah u naxariiso wuxuu ahaa qof wanaagsan oo garab qabta walaalihiisa talooyin wanaagsanna siiya islamarkaana ilaaliya wixii asraar ah ee lagu aamino mise waxay ku dhihi doonaan rabbiyow adigaa markhaati ka ah wuxuu ahaa iskudare aan ammaano lahayn ogow qof weliba oo turanturooday gacantana aad qabatay wuxuu kuu noqon doonaa markhaati ogow ilin weliba oo aad masaxday waxay kuu noqon doontaa markhaati ogow dhibbanno weliba oo muslim ah oo aad u muujisay walaaltinimo una dhoola caddaysay wuxuu kuu noqon doonaa markhaati ogow miskiin weliba ood u kaalmaysay qof weliba oo baahan ee aad cunto siisay iyo madluum kasta ood u hiilisay waxay kuu noqon doonaan markhaatiyaal ee badso markhaatiyaashaada adigoo xusuusan xadiidka rasuulka sallallahu calayhi wasallam ileen kuwa maanta nool waxay berrito noqon doonaan janaaso naxshka lagu sido ogowna waxay dadku markhaati ka noqon doonaan oo allaha qalbigooda gelin doonaa wax weliba oo kaa ahaa ikhlaas ileen alle ma aqbalo wax uu shirki iyo riyaa ku jiro